ciidamada diiwaangelinta Ballihiile ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay soo qabteen nin looga shakisan yahay inuu yahay dadka cuna dadka kale xayawaanka iyo wixii la mid ah. Waxa ugu horeyntii nooga warbixiyay mid ka mid ah ciidamada diiwaangelinta ee ka howlgala degmada Ballihiile ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Ballihiile Mudane Maxamuud Bilay Saxaaq, isagoo nooga warbixiyay sababaha ay uga shakiyeen ninkani inuu yahay dadka ka qaraabta dadka kale xayawaanka iyo wixii la mid ah. Waxaana hadaladoodii ka mid ah sidaado bal ninkan naga warbixaad soo qabateen. ninkan waxaan anagu nahay ciidankii joogay diiwaangelinta Ballihiile kadib waxa noo yimi dad shacab ah oo yaacaya waxay yiraahdeen nin baanu haynaa codkiisa aan garanayn oo geelina asaha ka shaqaya haye baanu anaga idinku imanayna kadib gaariga halkan ka kaxaysanay waanu ugu tagnay markuu gaariga arkay wuu cararay dibadna haddana adigu orod baa lagu soo gaaray waxaanu markaa ugu tagnay qalabkaas uu haysto oo yacnaa uu ku haysto alaabta kiishka uu jira sidii baanu ku soo qabanay sidaasaanu ku ogeysiinay markaa qaybtii markaa waxay leedahay gaaraanu soo diraynaa annaga idinku imanaynaa meel Hargeysaan ka mar wuu leeyahay marba nooc ku hadlaya codadka shacabka ay nagu yiraahdeen dadkii qabtay wuxuu yiri meel dawladda joogtay biliiska iga ilaaliya idinku hadda doontaan dila ka waxaan u aragnay in qofta miila oo cararayo aan garanayn labadaasna waanu ku haynaa maxay haytay silishada oo labaduba dhiig laga soo nuugo midna dadka midna adduunka iyo tuubadina waa ku jirtaa marka waxa la sheegay wuxuu dhowr jeer ba macna meesha lagu sheegay adoo alxaasir dadka dambeynimadaad qariyaday uu ma ku soo guulaysto soo qabtay annaguna halkii waanu ku soo qaaday sirigiisna dhiigiis waa kan uu kulay marka hore miyaa lagu sheegi jiray deegaankan qof noocan oo kala oo inta badan ama dad cunay ma jiraan kulay annagu dadkan deegaanka haddaanu nimi dadkana ma ogeyn laakiin waxay sheegayaan in noocyadoodu maraan meelahan oo qaar yiraahdaan xoolaan urursanaynaado qaar yiraahdaan wax nasiiyo adigu intii cunistan maxay tahay gobolka ka dhacday ay bilaabantay baa dadku yeegay intii hore ciidamo ma eegi jireen meel walba iska mari jireen bayna laakiin minkum baa lagu hambaro inta hadda Maxamuud Bilay Saxaaq gudoomiyaha magaalada Ballihiile ninkan la sheegayo magaalada lagu soo qabtay bal naga warbixi ninkan maanta baa naloo soo sheego aanu isaga warbixintiisa helay oo ay niman miyiga jooga yiraahdaan waanu haynaa nin noocaas oo geela afka ku maalaya iyo shirishada iyo waxa marka halkan aan uga diray askariga iyo gaariga aan uga diray saasa lagu soo ma jirtaa deegaanka marka la joogo waxyaalo sidan hore uga dhacay oo kala amal dad la cunay ama maadaama isagoo afkiisa uu ka shaqeyn uu magaalada aanu hayn ma jirtaa magaalada cid wax hore lagu yeelay ma dad la cunay dhacdada gobolka dhawaan ka dhacday mooyaane dad la cunay oo deegaankan lagu cunay ama gobolka lagu cunay oo mayn maqal hore u mayn maqal xoolo adigu way iska jiraan xoolo la cunay way iska jiraan ama qaar la qashaa way iska jiraan oo lama dareemi jirin qofkaas wuxuu yahay magaranaysa qof baa uu geeso mal moodi jiray qof magaranaysa si kale looma turjumi jirin noogta maxaad bulshada markaa u diraysaa deegaanka waxa la wixii noocyadaas oo kala iska ilaaliyo oo soo qabtana si degdeg ah u soo sheega geesta kale mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino ninkani looga shaki qaba inuu yahay dadka ka qaraabta dadka kale waa sida ay sheegeen dadka ku nool deegaankaniye aanu si rasmiya uga jawaabin su'aalihii ay warbaahintu weydiisay kaasoo laga dheehan karo hadaladiisa inuu yahay qof ajaaniba iyadoo dadka noocan oo kalaana ay saamayn ku yeesheen dadweynaha gobolka Togdheer isla markaasina khatar ba'an ku haya haddii aan laga qabanin dadka noocan oo kala